shirkadaasi Chinese-ka waxaan dhigi karnaa boqolkiiba boqol mashruucii sidii loogu talagalay u qabatay. caasimadii magaalada oo jijiga ah oo biyo la'aan ama biyo ay qaliil yihiin wax fara badan oo sheegi karno dadka u sheegi karno xagga biyaha iska yaraanaysa in la yiraahdo 1.4 billion lacag oo biyo-gelintii magaalada jijiga ah la lunsaday oo la qoro oo waliba jaraa'idada kuwa ugu waaweyn wadanka ay arrintaas qodaan arrin la yaab leh noqotay wax kale la iskala xisaabtami doono oo aan weydiin doono cadeynteeda meesha ka keenay waxaan jeclahay inaan marka faahfaahin ka bixiyo mashruucu sidoo ahaa magaalada jijiga waxay kamid tahay magaalooyinka waaweyn ee aadka u koraya guud ahaan wadanka markii hore mashruucan ka hor waxay ka cabi jireen dhowr soorsi mid wuxuu ahaa koonfurta magaalada mashruucan ku yaala ee waaji la yiraahdo oo 7 ceel ku yaaleen midna wuxuu ahaa 2 ceel oo ku yaala xagga feeracdo dhanka waqooyiga kuwana waxay ahayn magaalada dhexdeeda ceel ku yaala 30 meelahaas gaaraya ay ahaayeen marka intaasoo la isku daray guud ahaantood 25% dadka magaalada ku nool bay waraabinayeen magaalada maadaama koraysa marka mashruucan feestoga ayaa la bilaabay ceelasha waxa laga qoday dhanka faafan iyo dhagaxle guud ahaan wuxuu ka koobnaa 10 ceel in la qoday ahayd 10 ceel baa la dhameystiray boqol iyo 1 kilomitir oo distribution magaalada abaad iyadana jirtay boqol shaqada iyadana way la dhameystiray waxa jiray kaydad 5 ah oo mid 5 kilomitir kubiga 2,500 mitir kubiga mid 200 dhamaantood shaqooyinkaas waa la qabtay electromechanical ama qaybta dabka haduu bam yahay iyo haduu motor yahayba shaqooyinkana boqol waa la dhameystiray mashruucan waxa qaatay oo shaqadan fulisay shirkad Chinese ah oo la yiraahdo ECC shirkadaas qaadatay shirkadaasi Chinese-ka waxaan dhigi karnaa boqolkiiba boqol mashruucii sidii loogu talagalay u qabatay waxaana consultant ka ahaa oo dabagal ku ahaa mashruucan shirkad international oo la yiraahdo MS Consultant marka wax aysan MS Consultant soo sheegin hay'adihii u qaabilsanaa corruption-ka iyo musuqmaasuqa iyo dabagalkana aysan soo sheegin in intii uu la qoro report Ethiopia lagu faafiyo oo jaraa'id weyn laga yaqaan deegaanka iyo dalkaba waxaas qoro arrin nasiib darro ah weeye waxaan leenahay waxba kama jiraan waa been weyn sababta magaalada jijiga biyaha magaalada jijiga oo kale waxoogaa in hawshooda miisaanka ay leedahay la siiyo inay fiican tahay sababtoo ah caasimadii magaalada oo jijiga ah oo biyo la'aan ama biyo ay qaliil yihiin wax fara badan oo sheegi karno dadka u sheegi karno xagga biyaha iska yaraanaysa marka dadaal fiican xafiisku inuu sameeyo la socdaa laakiin mararka qaar waxa is leedahay strategically malaha ciladaha in la fahmo oo la sii hordhigo aad maaragtay dadaalkii loo baahnaa lama geliyo ama ha ahaato technical capacity-ga ka jirta xafiiska shaqaalaha hawshan qaabilsan cilado waxaa jira soo laalaabanayo oo marba la oranayo saasaan moodayno saasay noqotay halkaas aan moodayno arrimaha noocaasina ma habboona in saa noqdaan in wixii laga sii fikiro strategy lagu hogaamiyo ahead of time la ogaado ciladaha iman kara ama leer ha noqdaan waxyaalo kale in intaas laga sii baaraandego qorshe lagu galaa fiican laakiin kolkay caqabad ka hor timaado haddii turxan bixin xooga la saaro marka waxoogaa waxaan qabaa arrintaas inay dib u dhigtay mashruucii xilligu dhammaan lahaa iyo dadka ka faa'iideysan lahaa magaalada intaba taasoo kale mashruucii ugu weynaana wuu ahaa maaragtay flagshipka inoo ahaa taa oo kale guldalooyinka ka jira in la qaato oo la soxo sidoo kale waxaa jirta xagga mashruuca jijiga nagu celinaya waxaynu u sameynay mashruucan phase 2ga ee biyaha in coveragekii magaalada ee biyaha helaysa ay kor u kacdo marka waxaa dhacay oo kale qaab hadda uu bedelay uun kii hore ee jiray maadaama kii hore uu fadhiistay marka waxa ma soo kordhiyay haddii mashruucii hore ee biyaha magaalada soo gelinayay muxuu ahaa uu hoos u dhacay kan kale iminku yimaado jujug meesha ay joog bay noqonaysaa